waxa uu ahaa kulan dadweyne oo ishor keenay gudoomiyaha urur siyaasadeedka Hillaac Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo aqoon-yahanka gobolka Awdal waxaana kulankan oo maqaamkiisu aad u sareeyay wax la isaga weydiinayay xaalka dalka ee maanta iyo maqaamka uu gobolka Awdal ku sugan yahay waxaana ugu horeyn Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo mataaneynaya ujeedooyinka isku dhafan ee madashan uu yidhi shirka halkan aan caawis ugu nimid waxaan qabaa sida la igu sheegay inuu laba amurood isku keenayo haddii ay suurto gasho mid waxa weeye waxa inaga dhaxeeya dad wadaaga degmo iyo dan guud wadaaga taasi waa civic mutuality inaga dhaxaysa تكلا يسكو كان يسوي وحوي عقلي هذيك اللي بدي مجالات ولما نفور لها عندي دون تايس كتير ما تين نقول هاد والدي صح ولا عقلي so civic intellectual engagement وي وحمانتا يا هل كان يسكو كان وجدد لما أي تهيل لبضع هدي إنه مالنا إنه واحد بدن فرفوري كرنو واحد بدن إسلام فهم دونه بل ما بدن أن بيجن دونه لكن اللي يسكو سود دوانه يحق عقلك يحق قلبك الله بدر ولا يسكت سود دوانه وخارج عند ماي wixii intaas ka dambeeyay ayaa la guda galay falanqayn dood raay diibasho iyo tala soo jeedin dhinacyo badan taabanaysa oo ka turjumaysa dareenka hoose ee aqoon-yahanka gobolku ay maanta qabaan waxaana gorfayntaas dheer kadib Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo codbaahiyaha la wareegay uu tilmaamay inay u soo baxday inay meesha yaalaan laba arrimood oo kala ah cabasho iyo calooliyow bulshada cugdad ku noqday waxaana uu intaas raaciyay in la gaadhay waqtigii arrimahaas laga talaabsan lahaa waxaana uu yidhi waxaan uga jeedaa abashii calooliyo waxa lagaga baxaa markaad adigu isa soo taagto ee doonato ee kasbato ee hesho awood wax kaga qabato waxa tirsanayso awood inaad yeelato waxa halka ka bilaabaysa waxa la yiraahdo self critique inaad horta adigu is xisaabiso laba amurood umba adduunyada wax lagaga qabto dad qala raadinayso iyo hadad quwad kale raadinayso siyaasadda labanba wax lagaga qabto oo ugu waaweyn waxa weeye politics and economics siyaasadda ma ha siyaasadda ana kursiga baan doonayaa meeyar baan hageysa ka noqonayaa that's not politics that's self interest waxa weeye siyaasaddu sida loo ururiyo dad ballaaran ee la iskugu keeno danta ay wadaagaan dabadeetana la dhilo dantaas and then you push it forward that's what politics is political power sida loo helo real dalo kitaabka ayadiisii ugu horeysay maydaan bilaabin I'm telling you and the reason why you are powerless is because you have not organized yourself to become powerful. So the matter. Talabana wa dhaqaal. Politics and economics wali isku xidhan labadaas. So the matter. Sidee labada lagu helaa ay noqonaysaa marka. Waxa lagu helaa dadka dhibaatooyinkaas oo ay haystaan xaq darradaas oo ay haysato ee wax tirsanaya culus tirsanaya inay horta iyagu is urursadaan ay suursanaan organization inay samaystaan urur siyaasadeedka Hillaac ayuu asaaskiisii iyo himilooyinka loo unkay u daadagay waxaana uu iftiimiyay in urur siyaasadeedkan uu yahay midka kaliya ee lagu gaari karo meesha ay taal dawada cabashada iyo calooliyowga loo baahan yahay in maanta bulshada laga daweeyo waxaana uu mar kale yidhi anagu urur baan sameynay Hillaac allayda somadkan gurigaygan habeen ka soo tooso lama daawan karo waxaan lama daawan karo kuwii hore wax ku heshiinina way ka baxeen ballanadii kolka waa inaad adigu samaysato waxaad leedahay waa samaysato dadka kalena aad soo ka haysato urur Hillaac leedahay soo dhamaadka ururkaasina hadduu guuleysto wuxuu noqonayaa xisbigaasina wuxuu noqonayaa wax 10 sanadood ugu yaraan jooga oo idinku intaad fadhiisataan aad ka duushaan ayuu noqonayaa Hillaac markaa anagu saddex amurood
ayaan idinku ballan qaaday dee haddii aad doonaysaan baroorta iyo oohinta inaad ka kacdaan oo dagaalka soo gashaan 3 amuurood ayaan ballan qaaday waxa dadkeena ka maqan ee ay xaq u leeyihiin ma waxaad doonayso waxaan tan oo raba no waxaad doonayso xaquna waa in scientifically la macneeyo wixii xaqa ee ka maqan community-ga ilaa caduu guulaysto waxaan ku ballan qaadanaa anagoon cidna ka qarinayn idaacadaha ka sheeg ila raadi wixii xaqa ee community-gu ay haysato already insahan gacanta ay ku haysato in lala adkeeyo oo lala ilaaliyo si aanay uga raabixin oonay uga daadan oonay uga baabi'in wixii xaqa ee mustaqbalka aad ka doonaysid ummadaasi ay ka doonaysana oo cilmiyeysan sahanka waan idinla gelin haddaan naagayla saddexdaas waxaa maqan in la doono waxaa la haysto in la kaydiyo mustaqbalka waxaa laga doonaya loo wada tartamaya dee aan la ogeyn waxa dhiro doonana in loo diyaargaroobo saddexdaas murti Soomaaliyeed oo micnaheedu ku soo biyo shubanayo biyo sacabadaada ayaa lagaga dhargaa ayuu hadalka ku soo afmeeray Professor Axmed Ismaaciil Samatar magaabada hashaada yaa kamid may dhanaan kale macluul wax kaagama taraan ma lagu guray midigtaadu waxay goosataa may dhagaajada baroorta iyo baryada ay naga dhamaato let's grow up Abdullah Ali Yusuf Home Cable TV Borama